Hargeysa qaylo xoogan ayaa ka soo yeedhaysa waxa oo gandhi la soo noqnoqotay war baa taagan oo dhawaaq ayaa baxay waxa qaylo dhaaminaya cid kasta oo ka cararaysa cadhay iyo ciqaabeebe waxa haatan yeedhay oo bulshada badankeeda dhalay iyo dhalaan si isku mid ah hal mar loogu oogsaday haweeney baadariyada oo taariikhda buuggeeda ugu jirta kamid ahaanshaha 10 baadariye ugu sareeya Afrika kuwaasoo lagu darajeeyo gaalaysiinta kumanaan qof iyo heerka sareynta awoodda gaalaysiinta ay ka gaadheen haweeneydan oo kiniisada ay madax ka ahayd ay u garatay inay hanato xilka gaalaysiinta hablaha Soomaaliland sida kiniisadu baahisay kuna sheegtay inay mas'uuliyadda gaalaysiinta ay ugu duceeyaan ayaa waxa maamul looga dhigay jaamacad ay fureen bahda Abaarso oo horeba 1,001 su'aalood ay u dul yaaleen jaamacadda Abaarso oo dufcaddii ugu horeysay ka qalin jabisay ayaa waxa ka soo wada muuqday madaxweyne Biixi baadariyada caan baxday ee Joy iyo asaasaha dugsiyada lagu muransan yahay waxa ay u taagan yihiin iyo midhaha ay soo saaraanba wariye samafalo coldoon oo dhib badan u mutay ololaha ka dhanka ah saddexdan mashruuc ee kala daran Abaarso xarunta dhaqanka ee Hargeysa faafinta gaalnimada iyo dhaqanka qowmuluudka ee Nacdalan ayaa markii uu bulshada u soo bandhigay noocyada macallimiinta jaamacadda Barwaaqo iyo baadariyada maamulka looga dhigay waxaana taasi keentay in coldoon xabsiga loo taxaabo oo maxkamad la'aan loogu diray Mandheera haddaba si kooban aan isula fahanno maxaa meesha ka qaldan sidee xaalku yahay nooca qaylada baxaysa iyo waxa coldoon loo aamusiyay aan dhowr qaybood u kala qaadna sheekada adiguna wax yari ama himaankiyo indhaha oo ay soo eeg aan ku horeeyay jaamacadda Barwaaqo maxay tahay Barwaaqo iyo baadariyada Joy yaa ku weheliya maxaa Barwaaqo loogu bixiyay Joy maxay u timi astaanta Barwaaqo maxay u taagan tahay Barwaaqo waxa ay ka mid tahay dalada huwanta loogu magacaabo Abaarso waxaana si gaar ah loogu talagalay inay soo saarto habla macallimiin ah oo xambaarsan ujeedkii wax loo baray Barwaaqo hablaha la geynayo waxa laga soo xulaa dalada Abaarso waxaanay wax ku dhigtaan lacag la'aan waana boarding Barwaaqo baadariyada Joy waxa ku weheliya haweeney tobaneeya oo dalal badan ka kala yimid tani waa maamulihii ugu horeeyay ee baadariyada Barwaaqo yaa kale oo maamulkeeda iyo macallimiinteeda kamid ah waxa kamid ah haweeneyda lagu magacaabo Christina Bond Christina waa naag su'aashu maaha inay naag tahay waxayse kamid tahay bahda naagaha iyo ragga ee jirkooda xubnihii taranka dib loo nashqadeeyay Christina oo ahayd gabadh inta ay farjigeeda qalliin ku samaysay haatan sidata farjiga ragga oo kale iyo labadeedii naas hooyadeed oo sida sawirka ka muuqata waxa ay gudoomiye ka tahay ururka u dooda xuquuqda caafimaadka dadka dib isu kharribay ururkaasi oo lagu magacaabo Transgender Health Education Analysis waxay shakhsi ahaan iyo dhaqan ahaanba taabacsan tahay bahda Ibliiska caabudda Barwaaqo sida ka muuqata waxa ay u taagan tahay institution diinta Masiixiga ka farcama geedka Biixi ka dambeeyana waa kan Bible-kooda ku yaala Barwaaqo kaliya geedkan astaan uma aha sidoo kalena Abaarsada guud waa u yahay sida madaxweyne Biixi Barwaaqo dhexdeeda ka sheegay waxa madaxda dugsiga iyo Barwaaqo oo ay ka mid tahay baadariyada Joy ay ku bixiyaan iskuuladan sanad kasta in ka badan $30 milyan Jonathan iyo cidii iskuulkan abaabushay abaal weyn bay Soomaaliland u haysta waanu u mahadnaqaynaa 280 in ka badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan 30 milyan oo naanitaalka ee dowladda hayn ayuu carruurtooda ugu soo baray waanu uga mahadnaqayaa qarankuna u mahadnaqayaa Hargeysa baadariyadan ka hor miyaa lagu arkay baadariyiin kale oo fidiya gaalnimada waa su'aal kale miyay jiraan dhalinyaro la gaaleeyay labadaba jawaabtu waa haa oo waxa la xirxiray amar degdeg oo dibadda ka yimina lagu sii daayay dhalinyaro la gaaleeyay oo loo furay guryo waxa la qabtay oo amar diidmo oo banaanka ka yimi Biixi ku sii daayay laba baadariyo oo cadaan ah kuwaasi oo qaabilsanaa maalgelinta gaalaysiinta qaylada Barwaaqo iyo baadariyada haatan waa iskaadheen aanu gudubno halka ka sii daran waa xarunta dhaqanka ee Hargeysa qaylada ugu badan oo haatan 7 jirsatay waa tan ka taagan goobta lagu magacaabo xarunta dhaqanka ee Hargeysa
waa goobta loogu cabsida badan yahay waxyeeladeeda. halkani waa masrax ibliiska loogu adeego oo magaca loo qurxiyay, inkastoo tan iyo asaaskeedii goobtan su'aasha indheer garadka iyo ehludiinku dul hoganayeen oo cid u jawaabtaana aanay jirin. hase ahaatee sanadku markii uu ahaa 2015 ayay soo shaacbaxday in madashani tahay hog halaaga loogu yagleelo iyo haadaan xariir lagu daday. 2015 intii ka horeysay waxaa muran ka taagnaa awoodeynta macsida iyo la dirirka afkaaraha diinteena suuban oo siyaabo kala duwan halkan loogu duri jiray. hase ahaatee halkaa waaba la iskala tegay oo waa ka sii dartay xaalka xarunta dhaqanka. waxa ay noqotay alamtiro la soo dhaaf kadib markii 3 sannadood oo isku xiga ay dalka ku soo casuumeen shakhsiyaad caalamka oo ay kanis ama tusaalayaasha lagu dayday ee u taagan dhaqanka nacdalan ee qowmuluudka rag dumar kuwaasi oo xarunta dhaqanka qaarkood halku dhigga sanadka uga dhigtay bandhiga buugaagta. shakhsiyaadka astaamaha dhaqanka heerluud kuwooda ugu sarreeya ee xarunta dhaqanku dalka keentay ayaa kala ah. sanadkii 2015 waxaa xarunta dhaqanka barnaamijkeeda Book Fair lagu soo casuumay Judy Cayley oo ah haweeney madax ka ah ururka WOW oo u ololeeya isfuulfuulka dumarka. waa tan Julie oo shirinaysa haweenkii hablihii Hargeysa. So I'm here because I'm the director of the South Bank Centre in London, but I'm also the founder of WOW, Women of the World, which looks at gender equality across the world. sanadkii 2019 bishii August waxaa isla xarunta dhaqanka lagu soo casuumay ninkii jabiyay xeerka dalka Botswana ka xarimeeyay nimanku isfuulaan kadib malaayiin dollar oo colka qowmuluud ku bixiyay. waxa uu ku guuleystay inuu dalkiisa ka hirgeliyo iskuridda ragga. ninkan oo lagu magacaabo Dolan Malosi waxa uu xarunta dhaqanka ee Hargeysa ku soo bandhigay filin iyo buug uu ka qoray halgankiisii nacdalna. Andres Kubar ayaa isaguna jira waxa uu martigelin isku lamaan ka helay xarunta dhaqanka iyo dugsiga Abaarso. gudoomiyaha xarunta dhaqanku waxa uu ku doodayaa waxba nagama gelin waxa ay yihiin. hase yeeshee taasi waxa ay ka shifmatay kadib markii Hargeysa lagu qabtay bilowgii sanadii 2020 12 nin oo sheeganaya inay isqabaan kuwaasi oo weli xidhan. kiiskan argagaxale iyo martida xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa ah kuwa walaala ah. 12 nin ee qowmuluudnimada u xidhan 5 ka mid ah waxa ay ahaayeen dadyoogii ugu dhawaa ama saaxiibka la ahaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa.